Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo dib u dhacday iyo walaac laga muujiyay amniga xarunta gobolka Banaadir ahlu sunna oo ku baaqday dagaal kana hadashay ciidankii dawladda Soomaaliya ee geysay magaalada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ah iyo gaadiid dagaal geysay mar kale magaalada Dhuusamareeb 42 qof oo isku beela oo hal bil gudaheed laga shaqaaleysiiyay gobolka Banaadir ciidamada ahlu sunna oo isoristaag ku sameeyay ciidamo ka tirsan AMISOM oo isku dayay inay gudaha u galaan Galmudug General Galaal oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay dagaal ka dhex abuureyso beelaha Galmudug iyo sababo amni darteed oo loo hakiyay dacwadaha kiisaska dhulalka ee deegaanada Koonfur Galbeed intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorka roon markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan ciidamada ahlu sunna wal jameeca ayaa maanta isoristaag ku sameeyay kolonyo ay la socdeen ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti oo doonaya inay gudaha u galaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna ayaa kolonyadaas oo ka ambabaxday magaalada Beledweyne waxay ku celiyeen deegaanka Janta Gundisho ee duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wararka aan helnay ayaa sheegaya in xiisad xoogan oo ka dhalatay arintan ay ka taagan tahay halkaasi ila wareejo madax banaan oo nala hadlay ayaa sidoo kale inoo sheegay in ahlu sunna ay ciidamo dheeraad ah geeyeen kontaroolada laga soo gado degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan xaalad kacsanaan ayaa sidoo kale laga sheegayaa guud ahaan deegaanada Galmudug gaar ahaan qaybta xuduudda uu la leeyahay gobolka Hiiraan lama ogeyn ilaa hadda sababta ay ciidamada AMISOM isoristaagga ugu sameeyeen kolonyadaas ka tirsan ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah waxay geysay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kuwaas oo lagu qaaday diyaarad sidoo kalena laga dajiyay magaalada Dhuusamareeb sida wararku ay sheegayaan ciidamada ayaa waxa wehelinaya saanad hub waana markii ugu horeysay oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay Dhuusamareeb ka dajiso hub loogu talagalay in ciidamada halkaasi jooga ay ku shaqeeyaan maalinka hore ayay ahayd markii sidan oo kale laba diyaarad oo nooca ciidamada qaada ah ay ka degeen magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo la wareegay amniga guud ee xarumaha muhiimka ee magaalada Dhuusamareeb talaabooyinkan ayaa ka dhigan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si buuxda u adkeynayso joogitaankeeda magaalada Dhuusamareeb oo dhawaan lagu wado inuu ka dhaco shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ciidamadii ahlu sunna ee deegaanka ku sugnaa ayaa lagu daray kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo qaarkood tababaro loogu soo qaaday magaalada Muqdisho dhanka kale ururka ahlu sunna wal jameeca ayaa magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqay inuu burburay heshiiskii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna ayaa ku eedeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay mas'uul ka tahay burburka ku yimid heshiiskii labada dhinac kadib markii ay ciidamo ku soo daadgureysay magaalooyinka Galmudug dhanka kale ahlu sunna ayaa sheegtay inay ciidamo AMISOM ka xaqiijisay inaysan ku lug yeelan doonin arqaladeynta ay sheegeen inay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka wado Galmudug gaar ahaan magaalada madaxda ee Dhuusamareeb ahlu sunna ayaa ugu baaqday dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay ka waantoodo arrimahan sidoo kalena waxay ugu baaqdeen ciidamada iyo saanada military oo ay ku soo daadgureynayso magaalooyinka Galmudug inay joojiso qoraal ka soo baxay xafiiska Sheekh Maxamed Shaakir ayaa lagu sheegay in ahlu sunna aysan u dulqaadan doonin talaabooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadayso isla markaana ahlu sunna ay muujin doonto isku filnaan iyo inay la dagaasho dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya waxaan u cadeynaynaa in dhibaato walba oo ka dhacda deegaanada Galmudug inay mas'uul ka noqonayso dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale beesha caalamka waxaan u soo jeedinaynaa inay doorkeeda ka qaadato arrimahan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Sheekh Maxamed Shaakir madaxda AMISOM oo aan la xiriirna waxay noo xaqiijiyeen inaysan door ku yeelan doonin duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday Galmudug ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka xafladda xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish oo la qorsheynayay inay maanta ka dhacdo magaalada Muqdisho ayaa baaqatay warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa loo diray fariin wadareed loogu muujinayo inuu baaqday munaasabadii xil wareejinta ee ka dhici lahayd xarunta aqalka dawladda hoose
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa xaqiijiyey in sababo amni loo baajiyay munaasabada xil wareejinta oo ka dhici lahayd magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar. sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa inoo xaqiijiyay in booliiska ay ku taliyeen in guddi kale la magacaabo oo qabanqaabiya munaasabada xil wareejinta ee gudoomiye Cumar Finish. walaa xoog leh oo dhanka ammaanka ayaa ka jira xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar, iyadoo dadkii shalay la qabtay ay abuureen cabsi xoog leh oo xagga amniga ah. ciidamada booliiska ayaa xarunta gobolka banaadir shalay waxay kala baxeen dad uu ka mid yahay ku-xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka banaadir Nuur Axmed Cali. sidoo kale waxaa lala baxay qof kale oo isaguna ka mid ahaa guddiga qabanqaabada ammaanka xarunta gobolka banaadir ayaa la filayaa in ciidamo gaar ah ay la wareegaan, iyadoo lagu bedeli doono ciidamada hadda jooga ee booliiska ah. warar soo baxay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir Cumar Finish uu dalbaday in ciidamo uu isagu soo xulay lagu wareejiyo amniga xarunta gobolka banaadir si aysan u dhicin dayac amni. Cumar Finish ayaa madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ka dalbaday in loo madax banaaneeyo sugidda amniga xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar. gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda hoose ee xamar ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir Cumar Finish waxay u gudbiyeen liiska dad gaaraya 42 qof oo ka soo jeeda hal beel, kuwaasoo la shaqaaleysiiyey kadib geeridii Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii Muqdisho Injineer Ilisow. dadkan oo gaaraya 42 qof ayaa qayb ka ahaa 59 qof oo gobolka banaadir laga shaqaaleysiiyey markii uu geeriyooday marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ilisow. dadkan ayaa intooda badan waxaa shaqaaleysiiyey siyahayaha gudoomiyaha gobolka banaadir Ibraahim Dheere. gudoomiye ku-xigeenada iyo saraakiishan ayaa Cumar Finish u sheegay in dadka ugu badan ee la shaqaaleysiiyey halkii sano ee u dambeysay in dhammaantood ay ka soo jeedaan hal beel oo ah beesha Mursade ee uu ka soo jeeda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda Ibraahim Dheere. dadkan ayaa badankood laga keenay xafiisyada ra'iisul wasaaraha, xafiiska Mustafa Dhuxulow, senator Dhegdheer iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maaliyadda ee gobolka banaadir, waxayna intooda badan ka shaqeeyaan xafiisyada kala duwan ee maamulka gobolka banaadir gaar ahaan xafiisyada sare. warbaahinta ayaa ogaatay in 5 qof ee ka tirsan shaqaalaha gobolka banaadir 3 ka mid ah ay ka soo jeedaan beesha ra'iisul wasaaraha, halka inta kalena ay yihiin beelaha kale. mas-uuliyiintii la kulmay Cumar Finish ayaa ka dalbaday in la soco habka shaqaaleysiinta dowladda hoose ee xamar, isla markaana wax badan laga bedelo habkii lagu shaqaaleysiin jiray 2 sano ee la soo dhaafay shaqaalaha gobolka banaadir. isbarbaryaac iyo kala dambeyn la'aan xoog leh ayaa ka jirta dowladda hoose ee xamar, iyadoo inta badan dadkii la qoray ay yihiin dad aanan shaqeynin oo xafiisyo gaar ah isaga qoran, sidoo kalena lacago iska qaata. sidoo kale halkii sano ee la soo dhaafay waxaa la abuuray xilal aan sax ahayn oo lagu bixiyo mushaar fiican. sidoo kale waxaa jira dad iyagu aan soo xaadirin shaqada gobolka banaadir oo lacag fiican ka qaata dowladda hoose ee xamar. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka taliyaha ciidanka xoogga dalka kadib munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga. munaasabada waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, saraakiil ka socotay ciidanka xoogga dalka AMISOM iyo saraakiil kale. Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa xilkan waxa uu kala wareegay Generaal Daahir Aadan Cilmi Indho Qarshe oo muddo sanad xilkan hayay, waxaana taliyaha xilka wareejiya uu taliyaha cusub kula dardaarmay inuu si wanaagsan u sii wado hawsha. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa muddo sanad gudaheed waxa uu ku noqday abaanduul ciidan, taliyaha ciidamada lugta iyo taliye ku-xigeenka xoogga dalka Soomaaliya. waa taliyihii ugu da'da yaraa ee xilka taliska xoogga dalka loo magacaabo, waxaana Generaal Odawa uu tababaro kala duwan ku soo qaatay dalalka Uganda, Suudaan iyo Turkiga. xaalad jaawareer ayaa laga soo sheegayaa magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo ay saakay gaartay diyaarad siday ciidan iyo sidoo kale saanad military oo ka ambabaxday magaalada Muqdisho. Generaal Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa isaga oo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in xiisad u dhaxeysa ciidamada dowladda iyo Ahlus Sunna ay ka taagan tahay magaalada Dhuusamareeb. waxa uu dowladda federaalk ee Soomaaliya ugu baaqay inay xaliso arrimaha taagan.
galaal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waayadan dambe ahlu sunna ay ka careysan tahay heshiiskii ay la galeen dowladda federaalk ee Soomaaliya oo qodobada qaar aysan wali fulin dowladda. waxa uu sheegay isaga oo ku sugan degmada Gurceel oo waayadan dambe uu ku noolaa in ahlu sunna ay ka careysan tahay heshiiskii ay la galeen dowladda oo qodobada qaar aysan fulin dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo in ciidamada dowladda ee lagu daadgureynayo degmada Dhuusamareeb inay gabi ahaanba tahay qalad. waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in wax xiriira uusan la lahayn ciidamo iyo saraakiil ka tirsanaa ahlu sunna ee la doonayay in Muqdisho loo qaado inay diideen isla markaana xiriiradooda dib ugu laabteen. waxa uu wararkaasi ku tilmaamay warar been abuur ah oo uu sheegay inay ka faafiyeen dad doonaya inay magaca ka dilaan. labada dhinac ayuu ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan deganaanshaha deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. sidoo kale Generaal Galaal ayaa madaxda dowladda ugu baaqay inay xaliso xaaladaha adag ee ka taagan Galmudug si doorasho xalaal ah ay kaga dhacdo. weli ma cadda sababta dowladda federaalk ee Soomaaliya ay askartan faraha badan u geysay magaalada Dhuusamareeb. ha yeeshee arrintan waxay dareensiinaysaa maamulka ahlu sunna in dhaqdhaqaaqi ciidan dowladda ay halkaasi ka bilaabayso sidoo kalena dowladdu ay ka baxday balamihii ay la gashay dhammaan ahlu sunna. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen janalkan. daawada haddii aad ku cusub tahay janalka waxaa saartaa subscribe qaybta hoose ee janalka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada.